kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogta shana oo kusoo gudbina xogaha ugu dambeeyay ee warbixinada Soomaalida iyo xogaha dunida ee degal kasta. barnaamijkeena qodobada dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dalka Turkiga oo saldhig military ka helay dal u dhow dalka Masar iyo dalka Turkiga ayaa isweydaarsaday dowlatus military ee ugu weyna. Masar ayaa taageero ka raadsatay dalka Shiinaha oo ka dhana dalka Turkiga iyo Mareykanka oo ku hanjabay inuu tallaabo sharci ka qaadi doono cidda ka soo horjeeda horsocodka siyaasadda Soomaaliya iyo qodobo kale ayaan idin soo gudbin doonaa. barnaamijkeena xogta shine dowladda Mareykanka ayaa ka hortimi oo sharci darro ku tilmaantay xilka qaadista lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxayna ku hanjabtay in tallaabo ka dhana qaswadayaasha Soomaaliya ay qaadi doonto. dalka Mareykanka ayaa qoraal laga soo saaray lagu sheegay in aad ay ugu xun tahay ficilada xilka looga qaaday ra'iisul wasaare Khayre oo aan loo marin sifa sharci ah. tallaabadan ayaa safaaraddu ku sheegtay inay muujinayso xiisadda siyaasadeed ayna waxyeeleynayso hanaanka wadahadalka ee horsocodka federaalka Soomaaliya. safaaradda Mareykanka ayaa sidoo kale sharci darro ku qeexday qaabka xilka looga qaaday ra'iisul wasaare Khayre waxayna sheegtay safaaradda Mareykanka qoraal laga soo saaray hanaanka sharci darrada waxa uu dib u dhac ku yahay ajandaha isbedelada Soomaaliya oo ay guraad joogto dalka Mareykanka oo taageeraysa Soomaaliya xasiloonida iyo amniga iyo barwaaqada Soomaaliya waxaa lagu dhisi karaa oo kaliya wada shaqeyn isku xidhnaan iyo isu tanaasul dhexmara hay'adaha kala duwan ee dowladda ayaa lagu yiri warka qoraalka. sidoo kale waxay safaaradda Mareykanku intaa ku dartay haddii shakhsiyaad ama hay'ado ay isku dayayaan inay awood u yeeshaan kuwa kale inay waxyeeleeyaan waxay dhaawacaysaa xasiloonida. safaaradda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in ay ku adkeysanayso wadada kaliya ee hore loogu socon karo inay tahay in la fuliyo doorasho nabad ah oo waqtigeeda ku dhacda. safaaradda Mareykanka ayaa ku boorinaysa dowladda federaalka xubnaha dowlad goboleedyada iyo baarlamaanka iyo dhinacyada kale inay sii wadaan wada shaqeynta hufnaanta iyo heshiisyada lagu gaarayo in doorasho dalka ay ka dhacdo. Mareykanka waxa uu ku hanjabay in tallaabo ka dhana qaswadayaasha siyaasadeed ee Soomaaliya uu qaadi doono. dhanka kale saxiixa heshiis military oo ay la gashay dalka Niger oo ah dal daris la dalka Liibiya ayaa u turjumaya danta Turkiga ee ah in saldhig ay ka hesho dal u dhow Liibiya iyo waliba dalka Masar. sidaasna waxay soo warisay warqaadka News Khaleej. heshiiska waxaa lagu gaadhay safarkii isbuucii hore wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu uu ku tagay Afrika maadaama Niger ay ka mid tahay wadamada Afrika ee hore u booqday. Cavusoglu waxa uu la kulmay madaxweynaha Niger Mahamadou waxayna labada dhinac ka wada hadleen saameynta xaaladda xasiloonida darrada ee ka jirta dalka Liibiya iyo wadamada kale ee dariska la ah dalka Niger. warqaadka News Khaleej waxa uu shaaca ka qaaday in Turkiga uu heshiis military uu la leeyahay Liibiya oo aanu lahayn xuduud dhulka ah oo uu la leeyahay fursado kale oo uu uga helo dalalka daris la ah sidii uu galaangal military ugu yeelan lahaa markay tahay iska hormaadiyada military ee la gelayo dalka Masar oo taageersan Khalifa Haftar. sida uu qoray News Khaleej waxa uu sharaxay in suurtagal ay tahay isku dhac marka loo eego hadallada joogtada ah ee Cabdifataax Siisi kaasoo oo ballan qaaday inuu xoojinayo taageerada uu kaga hortagayo dalka Turkiga awoodiisa dalka Liibiya. inta lagu guda jiro booqashada dalka Niger ayaa waxa uu Cavusoglu uu yiri waxaan jeclaan lahayn in aan ka gacan siino horumarka Niger ee dhinacyada gaadiidka dhismaha iyo tamarta iyo macdanta iyo beeraha iyada oo qayb iskaashiga Turkiga uu la leeyahay Afrika. ayaa hay'adda Anadolu Agency ayaa soo warinaysa in dowladda Turkiga ay maalgelinayso malaayiin dollar oo deeq ah horumarinta kaabayaasha qandaraaslayaasha islamarkaasina maalgelinayso boqolaal arday oo Afrikaana. joogitaanka Turkiga ayaa laga dareemayaa qaaradda oo dhan halkaas ay ku sugan yihiin dhowr urur oo Turkiga oo ay ku jiraan hay'adaha iskaashiga iyo kuwa xiriirka Turkiga. dalka Niger ayaa ka mid ah dalalka dariska la ah dalka Liibiya sidoo kalena fursad u ah xiisadda dalka Turkiga uu kaga hortagayo dalka Masar inuu u helo saldhig military. geesta kale barnaamijkeenana
badda Mediterranean-ka ayaa goobjoog u ahayd laylisyo military oo u dhexeeya tartamayaasha gobolka marka loo eego xiisadda sii kordhaysa toddobaadkani. Khamiistii ayaa ciidamada cirka dalka Turkigu waxay qabteen tababar sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Turkigu qoraal ay ku daabacday barta Twitter-ka Sabtida iyadoo daabacday account-keeda ay ku leedahay Twitter-ka. Taliska ciidamada cirka ee dalka Turkiga waxa uu sheegay inay sameeyeen howlgal tababaraha badda Mediterranean-ka ka hor inta aysan sii dayn sawirada iyo fiidiyowga jimicsiga ee ciidamada dalka Turkiga. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo ay sii dheeraanayso xiisadda ka dhalatay mashruuca sahaminta Turkiga ee uu ka fulinayo bariga Mediterranean-ka, inkastoo ay diidmo baahsan ka imaanayso dalalka Greek iyo waliba Jamhuuriyadda Qobrus. Dhanka kale, ciidamada badda ee Masar iyo kuwa Faransiiska ayaa isla Sabtida tababar waxa ay wada jira ay ku qaateen badda Mediterranean-ka howlgal jimicsi ah. Bayaan ay soo saareen ciidamada Masar ayaa lagu sheegay in tababarkan uu yimid qaab dhismeedka qorshaha diyaar garowga wax ka qabashada Qaahire ee gobolka. Dhoolatuska dalka Masar waxaa ka qayb galay tababarada ciidamada badda ee Mediterranean-ka, gaar ahaan markabka dagaalka ee dalka Masar ee Long Life Egypt oo wata markab kale dagaal oo uu leeyahay dalka Faransiisku. Tababarada ayaa diiradda lagu saaray howlgallo badan oo ku saabsan qaababka loo abaabulo iskaashiga lagu fulinayo howlgallada lagu dagaalamayo badda ee ciidamada cadowga iyadoo la adeegsanayo hubka iyo sidoo kale lahaanshaha yoolalka hawada. Marka lagu daro hirgelinta dagaalada iska horimaadyada iyadoo ay ka qayb galeen tababarkaas qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dalka Masar. Tababarka Masar iyo Faransiiska oo wada jira ayaa yimid kadib markii maalmo ay socdeen dhaqdhaqaaq military oo Masar ah meel u dhow xadka galbeed ee ay la wadaagaan dalka Liibiya, iyadoo ay ku jirto jawi kacsan oo u dhexeeya Qaahire iyo Ankara oo ku saabsan arrinta dalka Liibiya. Xaaladda Liibiya ayaa weli meel xun ka taagan gobolka, iyadoo Turkigu uu taageerayo dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Chile iyo ciidanka Al-Wifaaq oo doonaya in la wareegaan magaalada Sirta iyo waliba saldhigga Al-Jufra, xilli Masar iyo Faransiiskuna ay taageerayaan taliyaha ciidamada bariga ee Liibiya Khalifa Haftar, iyadoo dhinaca kalena ay dalka Masar taageero ka raadsatay dalka Shiinaha si ay uga hortagto dalka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Sameh Shoukry ayaa waxa uu ugu yeedhay Shiinaha inay gacan ka geysato joojinta taageerada Turkiga ee dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Liibiya fadhigoodu yahay Tripoli. Inta lagu guda jiray telefoonka uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu dhigiisa dalka Masar waxa uu kala hadlay arrimaha ugu dambeeyay ee dalka Liibiya. Shoukry waxa uu kala hadlay mowqifka Masar ee mowqifkeeda ku aadan Liibiya, gaar ahaan ilaalinta midnimada iyo nabadgelyada dalka iyadoo la sameynayo sidii xal siyaasadeed looga heli lahaa khilaafka iyo in gacan laga geysto abuuritaanka hay'adaha qaranka ee dalka Liibiya. Waxa kale oo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in lala dagaalamo argagixisada lagana fogaado faragelinada dibadda. Masar iyo isutaga Imaaraadka Carabta iyo wadamo kale ayaa taageeraya Khalifa Haftar dagaalka ka dhanka ah dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay. Sarkaal ka tirsan Shiinaha ayaa ku booriyay dhammaan dhinacyada inay raadiyaan taageero qaramada midoobay oo loo arko inay tahay hay'adaha dhexdhexaadinta ugu weyn, iyo sidoo kale inay dib u nooleeyaan doorka ururada gobolka sida Jaamacadda Carabta iyo Midowga Afrika. Waxa kale oo uu yidhi waa in la joojiyaa dhaqdhaqaaqa xuduudaha ee kooxaha argagixisada si looga hortago dhibaatada dalka Liibiya inay sii xoogaysato. Ugu dambeynna, barnaamijkeenan xogta Shiine, Qatar ayaa ku dhawaaqday inay siin doonto ilaa iyo 100,000 oo lacag ah qoysaska dadka dhibaataysan ee reer Gaza sanad kasta. Guddiga Qatar ee dib u dhiska Gaza ayaa Jimcihii shaaca ka qaaday inay bilaabi doonto bixinta lacagaha mutadawwaca ah ee qoysaska u baahan ee ku sugan marinka Gaza. Gudoomiyaha guddiga ayaa kaalmadani waxa uu sheegay in la siinayo qoysaska reer Gaza iyadoo laga kaashanayo sanduuqa horumarinta ee Qatar. Waxa uu sharaxay in ay qaybintaas ay ka dhici doonto xafiisyada hoose ee maamulka ee ku yaal marinka Gaza. 100,000 oo qoys ayaa heli doona mucaawamadan ay siinayso dalka Qatar, wuxuuna tilmaamay in dhammaan tallaabooyinkan ay tahay mid loo qaadayo inta lagu guda jiro qaybta gargaarka si looga hortago faafitaanka corona, iyo waliba sidoo kale in guddigan ay bixinayaan kaalmadan bilaashka ah iyo sidoo kale inay kala qayb galayaan dhibaatada haysata marinka Gaza xilli ay sii cadaadinayso Israa'iil inay qabsato daanta galbeed. Barnaamijkeenan intaan ku soo gabagabeynayna intaan dib u kulmi doono nabadgelyo.